Wasirku-Dowlaha Wasaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Taclinta Sare ee Xukumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jibriil ayaa maanta kulan la qaatay maamulayaasha dugsiyada ay wasaaraddu gacanta ku hayso. Kulankan waxa goobjoog ka ahaa Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada Marwan Nuuriye Aadan Ciise, agaasimaha guud ee wasaaradda Mudane Axmed Xasan Yuusuf iyo agaasimaha dugsiyada. Wasir-Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Taclinta Sare Wasir-Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Jibriil ayaa xubnaha ka socday dugsiyada ay maamusho dawladda kulan uga dhageystay tayeynta waxbarashada iyo dardargelinta horumarinta waxbarashada. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta macallimiinta Soomaaliyeed si loo horumariyo waxbarashada dalka.